بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجكeenna dhabkaada qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa ama aynu ku eegi doonaa deegaanka Soomaalida gaar ahaan meesha lagu magacaabo ama deegaanka lagu magacaabo Bambaas ee degmada Gursum ayaynu eegi doonaa halkaasi oo la sheegay maanta in ciidamada deegaanka Soomaalida ee Liyu Boolisku ay ku laayeen ama ay ku dileen ilaa dhowr iyo 10 qof oo kamid ah shacabka deegaankaasi kadib isku dhacyo dhaxmaray ciidamada deegaanka iyo shacabka deegaankaasi Bambaas ama degmada Gursum halkaasi oo markaasi khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac bale ay dadkaas shacabka ka soo gaadhay sida xoguhu nagu soo gaadhayaan dabcan deegaankaasi waxa uu markii hore si toos ah uga tirsanaa deegaanka Soomaalida waxaana ku nool wali dad Soomaaliyeed ha yeeshee waxa haatan laga maamulaa dhinaca deegaanka Oromada sida aan xogta ku hayno bal arrimahaasi ayaynu eegi doonaa waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Galla taariikhduna waa 20ka bisha Maarso ee sanada 2022 jaac soo way deegaanka Bambaas ama Bambaas degmada Gursum maxaan xog ka haynaa dhacdada maanta ka dhacday بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهان بأمود الصوماليين ملك استيجوان بحال الله السلام الله عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون ومركه هره جودهان بشعب الصوماليات جارهن هلدي أي كبحين ضد شعبة وصوماليات ومانتا أي سئر حندرها عيد مدى اليو بوليس وحسوقين ديجان ك بمباس اللي يهدو ديجان الصوماليات قبل كفافن وارون si sharci darro loo hoosgeeyay deegaankaasi deegaanka Oromada laakiin dhulku waa dhul Soomaali wali ma degan waa dhul Soomaaliyeed oo ay Soomaaliya leedahay waligeedna deganeed haddana ay degan tahay laakiin laga maamulo dhinaca Oromada marka halkaasi ciidanka Liyu Booliska ciidanka Liyu Booliska deegaanka Soomaalida ayaa si waxashnimo aad u foolxun oo bini aadanimada ka baxsan iyo dad shacab ugu laayeen oo runtii la dhihi karo maxaan ku ilaahay waxay ahaayeen dad u badan dad aan diyaar u ahayn dhibaato laakiin cabasho sameynayay ama maaragtay xogaa dad cadhaysan oo wax ka cabanayay oo in sida loola macaamilo aan ku haboonayn marka waa uga tacsiinayna dhamaanba ehelkii qaraabadii iyo ummadii ay ka baxeen iyo guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtiina waa ayaan daro maalin walba in dhiiga shacabka Soomaaliyeed si maaragtay sharci darro ah oo ahmaqnimo ah in loo daadiyo oo uu dhiigii shacabku noqdo maaragtay waxaan macna lahayn oo cid lagu la xisaabtama hayaa jirin ciidanka Liyu Booliskana aad moodo in maaragtay hab dhaqankooda ilaa iyo hadda sida ay u dhaqmahayaan in ay tahay wax aan maaragtay la aqbali karin oo runtii meel ka dhaca oo ay tahay in ay ilaa iyo xad ciidanku bal dib isugu noqdaan iyaga naftirkooda ay fikiraan cadow lama direen meesha hadii Oromo la hoosgeeyay oo waxaan ognahay xilliga xukuumadii Cabdi Jibriil Abubakar ayaa dhul badan oo Soomaali leedahay oo ilaa hadda Soomaali leedahay dad Soomaaliyeedna degan yihiin Oromada lagu wareejiyay oo Gursum ay kamid tahay oo Beebili ay kamid tahay meel kale ay kamid ahaayeen deegaankan hadiiba Oromada wali ay maamulayso maxay ka soo doonaan ciidamada Liyu Boolis orda deegaanku waa deegaan Soomaaliyeed kooxdii EPRDF la dhihi jiray ayaa waxyaalihii ay ugu tala gashay inay Oromada iyo Soomaalidu inay isku mashquulaan oo iyaga lagaga sii jeedo xataa magaalooyinka yaani jinacsanay hadda meeqay u jirtaa jigjiga waa 30 kilomitir waa deegaan kale leeyahay waa Oromia yaa laga maamulaa Bambaasadani dhagax lay ku dhowdahay وهبلو مركز ولا يسوق مغليا وحالا dhigay canshuurtii meeshii xaruntii weyn ee canshuurta ee maamulka deegaanka Oromada ay ku lahaayeen deegaamadan ay ku lahaayeen marka waxa weeye waa nooc isku maaragtay loogu talagalay in la isku mashquuliyo laakiin deegaanka iyo dhulku waa dhul Soomaaliyeed niman Oromo oo maamul oo baa la keenay Oromo dadna kama degan duunyana kama daaqdo Fayaan Biiri iyo Gursum iyo dhulkan okay marka muhiimadu waxa ay tahay ciidanka Liyu Boolisku waa ciidanka dadka ay isfahmayaan ee ka hawlgala ee maaragtay dadkoodii meesha uu joogo Oromadana ciidan waa ka jooga wax ka jooga laakiin hawl u taala iyaga wixii isdilaya iyo wixii isbaacsanaya ma aha iyaga ciidanka iyo maamulka Oromada meelaha jooga kaliya waxa weeyaan canshuuraadka bay qaataan iyagu Soomaalida cunaha ku dhigan yihiin way dhacdada maanta soo dhacday aan horta dib ugu noqono dadku waa beesha akishe oo kamida beelaha Soomaaliyeed
beeshan horay bay waxay u dalbatay inay ugaas miyaamsa suldaan wax noocaasa inay caleema saarato dawladdu waa ogolaatay haddana war baa ka soo noqday xagga dawladda laleeyahay ugaas caleema saarayma dawladda loo maraa waa waxaan garan waaye annagu waa iska caleema saaran jirnay laakiin hadda bahasha la weydiisanayo dawladda ugaasnimada dawladda la weydiisanayo yaa wax kala aba haddana dawladda war kalaa ka soo kordhay haddana qabsadaa la yidhi haddana ukaadiyaa la yidhi haddana qabsadaa la yidhi haddana ukaadiyaa la yidhi yacni waa lala meeraystay mid qabsadu dhihi mid kalaa dhihi ukaadiya lama fasixine warkii war baa ka dambeeyey haddana mid kale yaa lala soo hadlay waxaa la dhihi ma caleema saarta ugaaska waa ka soo qaybgelaynaa annaguna beeshii waa la jahawareeriyey beeshii markii la jahawareeriyey saaka unba iska soo kaceen marka dadkii waa cadhoodeen ugaaskii haddii la yidhi ma caleema saaran kartaan dadkii waa soo kaceen laamiga magaalada Mombas oo aan filayo toga daaqatay inuu maro yay dadkii xidheen dadkii markii isu socodkii gaadiidka ay xidheen ciidamada liyu booliska ah loo soo diray ciidamada liyu boolisku waxa weeye ciidan akhlaaqiyan waxa weeye habaysan laguma tilmaami karo ciidan cadow weeyaan qaab cadownimo oo arxan daran dadka ula dhaqma iyaga iyo dadkii markay arkeen de wanaag kama filaynin Soomaa marka askariga wanaag ka filayso yaa moogtahay yaa wax la isu sheegaa dadkii dhagax tuur bay kala hortageen askartii wasida noo sheegaya moogtahay ciidankii hoos bay ugu dhigeen marba hadina la dhagax tuuray waa sidii halka ay u kaadad xogaha qaar waxay leeyihiin dadkani waa soo gadoodeen laamidii bay xidheen laamiduna waa laamidan weyn halbowlaha oo jigjigi iyo harar isku xidha ilaa diridhaba isku xidha laamidii iyo halka ka xidheen Mombas bay ka xidheen markay xireen ciidamada liyu booliska iyo si dadkan ay u kala eriyaan dadkii kala tagaa la yiri dadkiina waa diideen dhagax tuur iyo gadood bay bilaabeen meelaha qaar xabad nool ayay ciidanka kaga soo rideen ciidankiina xabad marka lagu soo riday waa u jawaabeen hadee meel xabad laga soo riday moogtahay askariga waxa lagu horeeyo lagu tababaro waxa weeye naftaada difaac moogtahay naftooda askartani difaaceen oo shacabkan iyaga qaar kood qoriyo haystay oo xabad ku riday ciidanka arintaas haday jirto maya waa warka la inoo sheegay way ilaa midkana meesha ma joogin moogtahay laakiin xogta aan helay xog baa sidaa sheegaysa arintaas haday jirto waa suuragal wax kasta way dhici karaan laakiin sideedaba shacabku uu gadoodi karaa xaq buu leeyahay inay gadoodaan inay qori qaataan laakiin xaq uma leh ukaadi naftooda ku difaacayaan iyagu iskaru soo naftiisa ku difaaca kolka hore lama baro sayna naftiisa ku difaacaya dadku way gadoodi karaan wayna cadhoon karaan laakiin ciidankan waa ciidanka loogu talagalay inay dadka iyagu ay la macaamilaan oo ay dejiyaan oo xabad xal aan hayn oo kale ay mar walba la yimaadaan dadku hadduu cadhoodo hadduu xabada soo rido hadduu wax walba sameeyo xalku ma aha xabad keliya xalku ma aha xabad inta la isxabadeeyaan cid dhimanin nin xabadaynaya iyo ciidanku inta cayliyaan oo hareeraha ka ordaan oo marka ugu dambeynta qoriga ka dhigaan iyoon hal xabaa ku ridin laakiin farsamadan haddii gabadho dhagax soo tuurto dhashiikaha ugu jawaabto waa wax kale weeyaan wax la aqbali karna maaha waa wax aan maaragtay suuragal ahayn dadku way dhagax tuurtamayaan xabaday ridayaan way cadhaysan yihiin waxbay diidan yihiin dadku waxay rabaan in lala hadlo dadka in wax la isweydaarsado oo waxa ay diidayaan laga maaragtay laga shaafiyo shacabka dawladda murmaan baad rabtaa dawladdu tahay daan lala murmaynin fiiri dadku waxbay ka cabanayaan adduunka dawladda waa lala murmaamay waa la ridaaba shacabku way ridaanba lama murmaan shacabku tay ku yaacaanba waxay ka bixiyaan meesha ay degan yihiin Soomaaliya garad awooddu waa shacabka weeyaan awoodda koobaad ee lagu xisaabtamay la rabaa in la qanciyo sababtoo lacagta canshuurta ee askarigan la siinayo hooyooyinkan uu dilayaa laga qaadaya Soomaaliya garad lacagta madaxweynuhu qaadanaya waa lacagta canshuurta shacabku waa inay xuquuqdooda helaan shacabku waa inay nolol ku filan helaan shacabku waa in loo adeego in la laayo ma aha shacabku in loo adeego oo la ilaaliyo amnigooda oo loo dulqaato oo gafafka iyo khalaadka ka dhacayo loogu samray mudan yihiin sababtoo ah waxaan oo dhan iyaga biilaya xabada mooska iyo xabad iyo qoriyaha ay hooyooyinku soo qaadaan ba salaad walba canshuur loola taagan yahay
cirka kama timaado lacagta mana soo qodaan kuwanu iyaga wax roonaya shaar ku cad yahay laakiin canshuurtada war ma qaad ya isku meel bay ku dhacdaa isku meel bay ka imaanaysaa wixii muhiimadu marka waxa weeyaan halka beesha akishe iyo ciidanka liyu booliska weeyaan waxa isku dardaray waa maasan tahay meeqa dhimatay marka dadka ilaa iyo hadda shaqada horta shaqo yar ma aha waa shaqo aad iyo aad u weyn yani 11 qof baa dhimatay yani waa xasuuq arxan darro aw waa xasuuq meeqa dhimatay 11 qof ha 11 qof oo bani aadana oo wax dambiya oo ay galeen aysan jirin in yaa lagu furay bahalkii ya daba jeex dabada loo qabtay iyo dhashiika iyo balaayo loo qabtay lagu afuufo dhaawacna 23 way dhaawacantay waa jidka ka kaca 23 waa dhaawac 12 waa dhimasho waa wararkii ugu dambeeyay wax badan baa isbedeli kara marka mashaqada la fiiriyo wax badan baa isbedeli kara oo dad badan xabadu qarsatay iyo kuwa ay dalaw ka tuurtay meeshuna waa tugag iyo maxaan ku ilaahay waxyaalo badan iyo kuwa meel ku laaban iyo kuwa dhagax maartay barkada intaba in la helo waa suuragal laakiin waa mid kamida waa masiibadii ugu weynayd baan filayaa ama waa mid kamida masiibooyinkii ugu waaweynaa ugu cuslaa ee deegaanka Soomaalida ka dhaca tan iyo intii isbedel ku yimid waa maasan tahay horay waxaan u ogeyn degmada Baarey oo kale inay dad lagu laayay intii hadda Mustafa joogay dhanaan oo kale aan ogeyn dad lagu laayay raasa dad lagu laayay dhagaxmadow baa lagu laayay dhuxun baa lagu laayay Mombasa maanta waa tana meelo kalena waa dad aw barra lagu laayay Haroreys baa lagu laayay Haroreys ma meesha maxay ahayd meel kale magac intaasna maanta hadii Mustafa iyo taageerayaashiisa la weydiiyo waxay ku oranayaan Mustafa hadii maanta xilka laga qaado wuxuu ka tagayaa isagoon faraha dhig ku lahayn yaa dadkan mas'uulka oo loo qabsanaya dilkooda intaas oo meel lagu dilay Abdiilay baa loo qabsan Abdiilay waa kee say dadka baray dilka soo dema wax allaale iyo intuu jooga carrada Soomaaliya ku Mustafa taageero waxay ku dhihii Mustafa faraha dhig ku lahayn butay oo shaatigiisu cad yahay Abdiilay dadka dili jiray Soomaha asaan ugu daraynaa kii hore ugu beernayna ilaa ay saasay rabaan soo fiiri Mustafa iyo maamulka Abdiilay wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto waa laba bahal weey waliba markii waxyaalo badan laga fiiriyo kan Mustafa ka qaab daraan lahaa oo ka maaragtay to qalafsanaan lahaa hadii xaaladdu sidii hore ay ahaan lahayd waa la isweydiin lahaa hadii ama jabhada ay jiraan ama dad dagaalamaya ay jiraan ummado dhan baa la isweydiin lahaa oo Ilaahay ugu ogyahay sababtoo maanta deegaanka Soomaalida wax dhibo ka jira male qofkii hadlana qabaala cayrinaya habeen walba weerar joogtay magaalada Jigjiga bil mitwaatir ay weerar ahayd gabal dhacay iyo waa bariyo qabaal ku xiimayay Soomaan garan madaxweyne Mustafa Maxamed Umar isaga oo shaatiga la sheegay kala sabax waa shaati cadaanta ninba si u yaqaana waka laakiin hadee waxa ku leeyahay Mustafa qof ma dilin isaga waxa ma dilin waxa dilahay waa ciidanka Abdiilay masaag gacanta ku toogay saasay ku leeyihiin hal qof uu dilay qatada qofka Abdiilay ka dilay noo sheegna wuxuu ku dhigay ma ciidankii uu soo diray baa dilay hada ka wan ba ciidankii uu baa dilahaya qof walba yani oo meesha jooga mas'uuliyadda wixii inta uu xilka jooga uu hayay isaga qaadaya madaxweyne Mustafa waxa waaye waa madaxweyne waa run ma dhahayna waxyaalo badan oo uusan Mustafa ogeyn baa jira runta markii laga hadlo oo in ciidanku ay ku jiraan ciidan dhaqan ciidan bahal ah oo dugaag ah ay ku jiraan 4 sano hortaagan yahay ciidan soo bedelamay Ilaahay baa dadka bedeli kara marka hadda wax loo sheego laakiin kuwa dadka hor u leeyahay musna dilacsiyo Soomaaliya kuwa dilacsiyo hada waa waxaan ku leeyahay isaga ka daraan lahaa Abdiilay sababta dariiqa Abdiilay kama leexaninba hal mar aba kama leexaninba ku dilacsiyo uu ka daba dilacsiyo wuxuu maraa dariiqi waa Abdiilay dhagax buuriyaas ka taqaana يا دغحبور يلا اسك كان تقانا لaba number دغحبور baa دغحبور baa اسك كان يقaan arka ayay waa ma santaa waxaan leeyahay iska baashaara aad baa ma santaa jaamac galad dawadayaal aad baa wax u nahay dhibaatadaas ka dhacday deegaankaasi Gursum ama Mombasa gobolka Faafan halkaasi oo dadka shacabka lagu laayay waa ka tacsiinayna dadkaasi Soomaaliyeed iyada ama iyaga maanta lagu laayay degmada Gursum ee deegaankaasi Mombasa tan iyo kulan dambe nabadgelyo